ist nicht international nicht anerkannt, aber mit modernen Techniken Fahnen gegeben. Somaliland liegt an Nordafrika, mitten in einer der Bundesregionen der Welt. Somaliland im Chaos war die Führungsscheißheit des 17. Jahrhunderts gegen Iran und jede Gruppe Auslandskriege haben als Vorziele präsentiert. Polizisten regeln den Verkehr schauen nach hinaus, ob die Daten ordnungsgemäß registriert sind. Die Fälle werden involviert und die Karte ist sinnvoller Menschen. Jugendliche laden Internetjobs, die eine Auswahl neues Videospiele anbieten. Letztes Jahr hat Somaliland seine Fitness-Experten gewählt, Mohammed Mahmoud Siayo und grafisch gefährdet. Die modernste Technik, die dazu beigetragen hat, dass es nicht zu Fallen bekommen wollte. Somaliland hat gehofft, die Erfahrung von der starken Welt anerkannt zu werden. Eigentlich hat Somaliland schon vor 21 Jahren seine Unabhängigkeit gewählt. Doch kaum eine Stadt hat Somaliland zu Ende des Krieges gehandelt. Wie kann die Kriegsverbrechen sein? Warum erkennen wir die Kosovo und die Südsudan am letzten Jahr lang geschmort? Nach Großbritannien seine Kolonie 1960 in die Unabhängigkeit entlassen hatte. Schloss Somaliland und ehemalige italienische Somaliland zusammen und war eine einzigartige Fehler, weil die Wahl die neue Provinz die Mitbestimmung und die große militärische Verletzung jeder einzelnen Höhe erstellt. Die somalische Diktator ist Somaliland mindestens 50.000 Somaliländer sind damals gestorben. Jede Zeit ist Somaliländer lernt nur und lernt jede gemeinsame Lösung ist Somalia ab. Die Erinnerung ist die heimlichen Menschen, auch die Stadt von Highways, sind Spuren der Bürgerkrieg noch deutlich zu erkennen. Es gibt keine Kinos und es gibt keine Theater. Etwa 85% die Jugendlichen sind arbeitslos. Wir sind eine Nation auf Überleben. Oder Ausbildungsmöglichkeiten. Gleichzeitig haben die Jugendlichen auch nicht die Möglichkeit, sich auszubilden zu lassen. Internationale Anerkennung ist jede Schlüssel, jede Ziel, die Verwaltung aufgerufen, weil wir nicht anerkannt sind. Dafür tun sie seit Jahren Millionen nach Somalia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كم يلا بعتقد أصلاً نقطة روحه وتصمم عليه بحالة كده وحالة سوقة حاولت أقدر القوم دي ما في وقت لو صرنا بأعمال حسيت بالحبيب وهي صلاة الرحمن العظيم عبد الرحمن نصر وحاولت غير ما بين صلاة الدعوة وحالنا لا تبعهم كمستحيل الشيء إلى واحد وحالنا خاص بالبلوى عليه ستير يتركني كل يسمع ويقول يسمع وصل رسول جبريل الصومالي وانا راس عمانتا من الصومالي بعد مارس ومع الروح على إلا بس نتهي بس نعم حكم يقول الشروق بين الصومالي والدول لبس نتهي وحا نشوي نشتي ولا لا وحا نقرر الوصي لحولين بعد أنا حسين عمل حاجة لا إله لحولين لا أتصدق لي إنه بداية ما Why?
مدن الجامعة الجامعة ونقول لحوالي 6 حالات لأن وقع الرئيس الدراسة والدول درجة المكان درجة الدكتورية يطلع شرعة الرئيس الرئيس محاضرة البوليسي بالحوالي أفراد الصومال الآن مدن أحمد محمد السيلاني وسط المراكز والدورتين لحوالي السيلاني وحياوها منها الوقتين سنة يبقى عدتي وحاولها بيشفيها البيسات ولا لبايسكرين العكس كيفاتي وقع علي الدليل يولي شاكي وقفل اسكولة يقول على العقل يولي بإخلاص يكون مع الشغل الشغالي ماذا هو التواصل القلوب والاستيقاظ مع التخصيص والقبض ضد الصومال المسلمين هذا هو أمامكم والاستيقاظ عالم لأنه هو الجعل أبوها أقول يفرش في أولا وقولها الشعب في الصومال هذا هو الجعل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لما أنت مركو آدي آدان بسلام يا جديدين شرفت له حفلة قارئة كسوق كلي عاو حسينا مسلم كوبي على وطننا كوبي لا تبورو تبورو سؤال من عندي آدي آدان بسلام يا وحنكم هنقيا حتى على ساعتين يمرها runtii dhaadheer aad ka timaadeen ama safarada dheer aad soo gasheen ayaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa waxaan si gaar ah uga mahadnaqayaa qolada martida loo yahay reer Munich ay runtii abaabulka sameeyay iyo maartay maayis xidaanka dadweynaha ajaanibka ah sida mahaye dhakhtarka jarmalka ahaa ayagana xafladda nagala soo qayb galay iyo qolada waxay naga duubaysaa hadday maxaaye home cable TV iyo qoladan kale eegna channelka ama iyagana aad iyo aad baan runtii u salaamaya wadankii isaga warramayna oo kasta waxay ku sukeeyey maanta dee dunidu waxay edeb bay ku wada nooshahay oo lama kala warroona waxa ugu warroon kolba ninka internetka ugu dambeeya fura ayaa ugu warroon runtii oo maanta waxaa runtii suuro geliyey in si dhib warka lagu heli karo teknolojiyada casriga ah ee runtii maanta aynu inteena nool nasiib ugu yeelan marka guud ahaan waa nabad waxa dheedii ma jiraan ilaahay mahadi weeye idinkuna waad ka warqabtaan waxaa runtii haddaan waxay ka tahdaa
qaato dowladdan cusub runtii intii dhulka haysay labadii sannadood 2 bilood ayaa uga dhiman waxa weeyaan 22 bilood 22 bilood runtii waxa la qabto haddii aan sanada caawda ka sheekeen markaan gari lahayn noqo anigoo aan isfaarinaynin waxa weeyaan wax laga sheeko karo caawda dhamayn kara maaha muxuuha dowladda cusub markii ay mucaaradka ahayd ee ay xilka u soo tartamaysay waxa ay dadka codka kaga heshay waxa ay inay isbeddel samaynayso isbeddel dhinac walba inay samaynayso runtii isbeddelkii dhammaan wasaaradaha jira iyo maamulka waddanka hadduu yahay heer qaran iyo hadduu yahay gobolladiisaba si fiican buu runtii uga muuqdaa maalin kuma darsado isbeddelku waxaan markii aan ka soo dhoofayay madaarka Hargeysa ayaa intii aan diyaaradda sugayba waxaan buug baan akhriyay madaarka yaallay oo laga diyaariyay sanadkii hore wasaaradda duulista hawadu waxay qabadkeeda laga hadlayo aniga iyo runtii goobjoog oo ahaa sanadka inta la qabtay buugaa ku qoray yani aad iyo aad baan la yaabay anigii baa waxay noqotay wax cusub oo runtii qariiba bay noqotay iyadoo runtii sanad kale ay ahayd anigoo goobjoog u ahaa maalin walba waxa cusub ay wasaaradda saarahan qabanaysay haddana markii buug laga dhigay ee laysku soo ururiyey aad baan la tacajabay runtii inay bugaagta noocaas soo gaarto wasaaradda walbana way diyaarisaa in dadkii la dibadda saa ula socotaan isbeddelku intuu qara leeyahay in bugaagta sanad walba la daawacay oo qabadka wasaaradaha ama guud ahaan waddanka laga diyaariyo inay soo gaaraan waa muhiim runtii si aad u ogaataan waxqabadka runtii ay dowladda runtii ku talaabsatay muddadii yar inay jirtay 22 bilood ahayd waa wax lagu faano oo aan la qarin karin oo aanay cidna odhan karin dowladdu ma samaynin isbeddelkii looga baahnaa lagu doortay oo waxaan runtii la odhan karin qofku markuu mucaarad yahay mararka qaarkood sax iyo qalad baa u hadlaa wax badan oo xaqaawo qaniyaa anaba waa soo marray taas oo waqti aan soo marray baa jirtay laakiin marka run lagu hadlaayo run dad ilaahay la dhaqaayo indhaha dadka maanta reer Soomaaliya jooga iyo kuwa dibadda ee la socdaa waa arkay isbeddelka runtii aad u qiimaha badan ee la sameeyay maanta ama tirin karo maanta caawa halkan kuma soo koobi karno dhaliilo waa iman kartaa meel aan dee wax laga qabanayn un baarin dhaliilo imanin marka wax la qabanayo wax la isku dhaliilo waa la arkaya meel shaqa ka socoto maalin runtii la isku dhaliilaa laakiin meelaan waxba dee la qabanahayn oo la iska fadhiyo dee ma timaado ciladima soo baxdo qalad ma yimaado qaladku wuxuu yimaadaa marka wax la qabanayo ee 10 saxeed la sameeyo 10 shay la sameeyo ayaa mid qalad u iman karaa markaasaa la sheegi karaa taasna runtii dowladdan waxay diyaar uga tahay waxa weeye toosin bay diyaar uga tahay talada la siiyay diyaar u tahay inay qaatay diyaar u tahay dadkeeda la tashanaysaa baabadu way u furan yihiin waxa weeye gaar ahaan waliba dadkiina dibadda oo waddankooda jecel dadkiina dibadda ku nool oo ognahay in waddankiina aad u jeceshiin meelaad joogtaanba adduunka taladooda waxa weeye waa mid caafimaad qabto oo aan si gaara runtii usii jecelahay marka si waji kasta oo loo kala xidhiidhi karo ama muxuu ahaye hadday tahay dadyada iyo hadday tahay muxuu ahaye qoraal aad waddanka soo gaadhsiisaan waxa weeye sidii aad talada lagu soo gaadhsiinaysaan ba lagu soo gaadhsiiya annaguna inaanu daawanno oo aan ku camalfalno diyaar baan joogahay xagga runtii wada hadallada bilowday ee beriga dowladda shirkii ladan wasiirkii ayaa hadlaya macdalikanna waxaa ka socda ciyaaraan malaynayaa dhalinyarada waxaan leenahay bliis fadhiista oo dhagaysta wasiirka hala fadhiisto ayaan leenahay dhalinyarada kuna soo dhawaada aynu isdhegaysano waxqabadkaa runtii ballaaran ee marka aan leeyahay caawna haddaynu wadno kama sheekayn karno ee wasaaradda laba buugga ay sanadkii diyaarisay uu daabacan yahay haddana kii kale laba bilood marka nooha ayaa marka inoo hore la diyaarinayo waxaan jeclaan lahaa inay ka soo gaaraan oo aad aragtaan duruufta runtii aynu ku jirno waddan ahaan
هوش أنت عليك لقبتي وحويا وظروفك وأنا قالتي وأنا سوستي وحويا بجت كيف أما ميزانية السنة كيف حاصلا وقوايا وحويا وقول مليون دبي وسمتكي لبدا كوحود عاون magaalada ku ciyaaraya waxa laga yaabaa mid walba inay boqol kaamiliyeen sanadka dabadna inay caawa hesho saddexlaabkii mid walba ama ka badan waxay horta qoodna waxay taale boqol kaamiliyeen ee laga yaabo haday caawa baayar bixiso inay shan boqol oo kun oo dollar qaadato laga yaabo oo budgetkeeda ku shaqaalaha saacay kama من قليلين شغالين بقول مبروك كبني من الترجمة كوش تغيير البليس كانوا كوش تغيير صدق كنا معنا الوقور بيه شرط بقول إحنا خاطر عفمات قال الوقور بيه ترى هذا الوقور بيه وقرت واحد تعلم وما دونا يكسر يسمع من هاي لما كنا كي حسن كهذا إيه وحشري ما عتين فرعي استراتيجية ما كان يشتغل على إلا بسم ديالو بس الكلام ما هاي ما أنت وطلع يعني قابو بقول كل بجت كنا دولة وياها ما تسكر بقول كبعدين عسكري شغالة وصونوري أصلا كمان صومالي نهاية وطلع عرقابة وطلع ميل بقول كل دولار هي بجت السؤال لنا مرة ما يكرر مركب حوي يوطا إنه إيطاليا كنا يروح عند قارة هاي ما أوغانو وحباهي نوت على أوغانو يلو عن شيري إن كاسو وحين لقبتنتي وأنا عاونك شيئين كلمة أيها هذا رب إلهنا تعالى iyo waxay tahay in la qabtay loo baahan yahay wariyo ummadda loo baahan dadka loo baahan yahay ay inta cidkii loo ka soo jira waa noqonahay naga qarsoona laakiin waxa weeye mid walba waxaan la sugaynaa maalinta maxaa ay suura gasho ee intaalkeena yeelano intaalkeena maalinta yeelano ayay la sugaynaa waxa dawladda ka go'an waxa weeyaan in aanay ummadeeda haqranin shayga muhiimka waa ka dawladda waxa ka go'an inay ummadeeda haqranin وحوالي وحي إيطاليا لهي وحي أوروبا لهي هي وحي مسكحة لهي هي سوقيسو إن أنا نهاي وحي كمان كرتا مدة أنا كل باتون وحنا مين في ورتي واليدا وحكلا وكبان إن عالم كله بس لو في عن اللي ما عليه كرم حياة نقص ما بدنا نقول إنه حكي ما ده حاجة عفمات هي ده حاجة بيها هي ده حاجة أخبار شغلة أدوك مارك وشل عالم كذي مدان وارسي أصدق في عن الولاد ما يلقوا ما كدر السيسر عفماتك إما كفرسان الهوين أولها عن عف وسرت عفان عن هينو بدل كل واحد بدي نوي ماذا هذا دي فايدة إنجليز USA Australian Aid هاي هذه بالحكم أيوه سويسرلاند أيد تمام واحد ما تمام السيرة عملوا سويدش أيد أي شيء ما درمتي وحويان شغلت عم تسعة أو إما كان أنا بقول بقى معي طبيعي استلمتي وعفمات كل ولا كفرقريت وقرا معي كنت إما كان صور لي ما يبلا يعني وحويان أدوم كاس ولا كاس أصلي وأنا سنة بورد أنا هي بيت هاي هذه برشة هاي هي هذه عفمات هاي هي هذه قرشة كانت هاي برمتي taas suura gelisay inay aduunku inoo soo joogsado oo waxa weeye markaad shirinka adiga ku soo galana laamsato sida ugu saxsan u isticmaasho ayuu caalamku diyaar u yahay inkiisa ku siiyo diyaaradu way dhacday way soo afyaatay si fiican bay u socotaa waxaynu rajaynaynaa weliba dhicin inta Somaliland jirtay donation amaba deeq toos ah oo la yiraahdo 1 milyan ahaatee halkaa milyan baa Somaliland ugu caawiya gacanta laga geliyay oo budgetkeeda lagu daray weli lama arag may dhicin runtii waxaan ahayn cashuurta ama cashuuraha beriga hadda ama kuwa kale ma kastamada ha nabatee waxaan cashuurta ahayn oo ina soo galay oo khayraad aan leenahay ina soo galo hore dhamaytirin sanadkan amaba hadda inaa warka kala socotaa ma filay ayaa waxa ay ugu horeysaa arrintaasi oo shirkado badan oo shidaal iyo macdan boqoday dawladda heshiis la gashay baa jirtay mana tii ugu horeysay inay lacag $600,000 oo ah xaqulqalinkii inay dawladda gacanta ka gelisay oo wasaaradda maaliyadda lagu wareejiyey ayaa runtii ku horeysaa ma filaya waa tii ugu horeysay ee khayraad ku jeedaan ka helo ay kasoo gashay $600,000 ugu horeeyay
ما أنت توصل تستدل المصارع كان نراك كعشور بريء قادني وبلو في عن وحويان وكسي بدنسا بحن رجلنا دعانا دي أطبعنا ووضع كذا إن كور مكرنا ويودوي بكل سنة وأين كل شقاوة وصمين كنا نتي وأين هردوك جاري كنا نتي إن الكتب بتشرب من تينا والشركة عاصمة كدوا عفرتي أنا بعدين يشتغل بس صارت أين رجلنا وضع كوهم أو كورما أرنت الحاجة منها هاي حاجة دياسبرا ولا اختبر أي أويه تدكينا قربتشو كيف سؤالا اختبر بعضهم وربك وضن كم إيو ثلاثينها منها هاي دولها ما ترى على أساس إنسان إيو نورش بود إيرتي وضن كينا waxay ku xiran tahay boqolka reerihiina u dirtaan bas Soomaaliland oo dadkii ma wax ciyaar taasay u dhaxaysa waxay isku halayeen arrintii wax weyn waa taa marka arrintii waxa tii xuduudda Soomaaliland ku xisaabtan Soomaaliland kastoo aan joogtaaba laakiin juhdiga shakhsigii mid badan ma dhaliyo marka maskaxda iyo muruqa iyo maalka la isku geeyay ayuu noqdaa markaas ay ka faa'iido bataan halka boqolka reerka ahelka aad u dirayso oo runtii wax weyn taraya waxa ay wax ka sii weyn tarla idinko wada tashada oo iskaashada oo midooba oo gacmaha isqabsada oo muruq iyo maskax iyo maal isku beeriya oo ama wada dib maal gashada ama mashaariicda ka socotay hawlaha ka socda maxaa gacan ka geysta ama adduunkan hodanka ah maanta ala taalan sida Jarmalka oo kale waa wadamada ugu hodansan ee ugu dhaqaalaha badan ee waliba ugu safisan ee ugu diyaarsan yani inta ay soo tagtaan oo tashataan inaad xeegan ka samaystaan aqoonta ka hadla mawshiin oo aad wadankiina wax uga dhalisaan aadana faa'iido ku keenaya aadana ku keenaya imanka wadamada mashaariicda waddankeena ka socoto wax ka qabata Jarmalku kuma jiro haddii laga tagi waayo wuxuu EU-da soo mariyay mooyaane EU ka tirsan yahay wuxuu soo mariyay mooyaane wax toos u Soomaaliland u siiya ama guud ahaan Soomaalida u siiya Jarmalku ima kama jirto waxa weeye halkaa uu ka yargabnoobay isagoo aan ognahay inay dad wanaagsan yihiin dhaqaale fiican haystaan deeqsiina yihiin marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka reer Somaliland ayaan maali garan waayay haddii Jarmalku laga gabnoobay marka waxaan u baahannahay kala hore waan imid Jarmalka laba wasaaradood baan la kulmay waxaan arkay runtii meel dihin balaan dihinida garamaya dhalinyarada yareeya meel aan weli koob laga dhaliyo buuxdo wey isla markaa dad wanaagsan oo saxiina weeye diyaarna wayna waxnoo qabtaan imanka waxa weeyaan dhammaan EU-da dee waa lagu wada jiraayo lacagta waa kusoo wada dhacdaa global fundka lacagtooda waa la wada bixiyaa oo meelaha runtii caafimaadka laga caawiyo ka mid ah laakiin haddana waddan kastaaba muxuu ahaye hay-adda kaalminaysa dibaddu dhaqaalaha toosu noogu soo mariya Soomaaliya Ingiriiska DFID bay noo soo mariya Maraykanka USAID bay noo soo mariya Australian Aid bay noo soo maraysaa siiday noo soo maraysaa Swedishku maxaa kaalmadiisa hadda Swisskan nagu xiga ayaa bilaabay oo iyaguna ku soo biiray maxaa wadamada tooska deeqda ah bixinaya ee mashaariicda horumarinta ee waddankeena ka socda guud ahaan Soomaaliya ka socda aan dadka Soomaaliyeed oo qabanayo maxaa ahaye ku taraya marka Jarmalkii oo ugu hodansan oo ugu deeqsisan toos deeqsi toos ka bariyahan ma badna waxa moodaa GTC oo wax weyn waddanka qaban jirtay ma joogto agro action way hawsha qaban jirtay way yaraysay Jarmalka caafimaad waxa hay'adii la yiraahdo ayaa isbitaalka ilaa ay 82 ilaa ay 95 ka shaqeeysay isbitaalka Hargeysa runtii ilaa hadda sanada ayaa la isticmaalo oo 82 keeneen marka waxa weeye waxaan leenahay war Jarmalkii ku noqdo idinkaana gabay baan u malaynayaa
inta idinku midowdaan oo horta aad noqotaan urur keliya oo meel kale ka duulaya oo isku fikriya oo iska dagaalay inaad muxuu ahaayey kaalmo iyo ama baxay mashaariic horumarineed inaad waddankeena uga doontaan waddankana la nooshiin ayaan aad iyo aad kula talin lahaa waxaas waxaa lagu heli karaa muxuu ahaayey waxaa la yidhaha isku qaybeen ka kuma qaybeen dee markaa mid tihiin ee jaaliyadda jarmalkeeda Soomaaliland markay mid yihiin ee gacmaha haystaan isku fikir yihiin ee isku aragti yihiin ayuunbay wax midana dooni karaan codkooduna waa qiimeeyanaya marka waxaan kula talin lahaa horta inaad mid noqotaan mar labaadkana inaan ka mid ah oo keliya oo cod kaliya leh inaad muxuu ahaayey dowladda jarmalka iyo haddii la xukmiyo muxuu ahaayey hay-adaha khayriga ah ee jarmalka samafalkaba inaad dad uga doontaan muxuu ahaayey dadkiina iyo dalkiina wax inaad uga doontaan tusaale ahaan waxaa jira xagga infrastructureka dadweynihii reer Soomaaliland ee gudaha joogay waxay u arkeen waxaanay qabsoon iyagu qabsaneen inaanay u qabsoomin wadooyin fara badan baa socda wadada dowga cad baa socota Hargeysa ka soo bilowday ilaa xeebta Timaada wadada Oodweyne Hargeysa isku xidhaa socota wadada Balligubadiya Hargeysa isku xidhaa socota wadada Salaxda iyo Hargeysa isku xidhaa socota intaasoo wado oo wada laamay oo dadkii ay wadaan baa jira idinku kale ka qaybatiin oo leeyahay soo qeyla diray oo waan ku kalsoonaa waan hubaa taahor waan xusuusanayaa in wadooyinka ka qayb qaadataan laba horumarkii waddanka oo xil baa idinka saaranay taa waan xusuusanayaa waxa kale oo aan xusuusanayaa waddankani wuxuu hodan ku yahay qalabka macdanaadka culculus ee wadooyinka lagu dhisayo hodan ku yahay iyagoo aan waxba qabin oo wada cusub oo ay ka baxaan baa jirto oo maaragtay maxaaye second hand haddii laynoo soo dejiyo oo qalabkaas maxaaye waddanka loo soo diro oo wasaaradda hawlaha guud loo soo diro waxaan aaminsanahay inaynu wadooyinkeena oo dhan wada dhisan karno oo dhammaan waddanka isku wada xidhi karno wadooyin laama isku wada xidhi karno marka runtii waxaan kalsoonahay maadaama qalabkaa soo saara waddanka kuma shaqaysto iyagoo xoogaa iska second hand oo wada fiican in la heli karo marka dadka ka shaqeeyo wadooyinka dhismahooda u socdaay aan inta habeen dhamaystirno oo maxaaye aan waddanka isku wada xidhnay ceerigaab u baahantii ka cuslaatay shicibka oo iyada Soomaaliland oo baa u baahan waxaan lahay wadada ugu muhiimsan ee boorama iyo dila oo runtii iyadana ay wax yar u harsan yihiin oo aad iyo aad u amaanaya dadweynaha maxaaye heeraha waddanka ka jirta waxay soo codsadeen iimaylada soo geliyeen qofka soo reer Soomaaliland haddii ay xaaskiisu 10 qof yahay $10 noo soo dira calaa qof $1 fariintaana waan soo gaarsiiyay haddaan soo gaarin waa wadada boorame iyo dila waxa weeye message-kaasi dadka reer Soomaaliland gudaha jooga uu soo gaaray idinkana haddaan soo gaarin soo gaarsiiyey imaka wixii baa idin jira caawa laga bilaabo qofkii 10 qof qoyskii 10 qof $10 waa laga doonayaa waa inay u diraan asarda hay'adda wadooyinka ee maxaa hawsha qabanaysa marka sidaasay waddanka u dhisaynaa wadada ceerigaabo Soomaaliland isugu wada tegi doonto aan cidi dhisi karin keligeed ayuu baa noo dhiman wadooyinkii muhiimka ah taana insha Allah marka kuwa kale wada dhamaanaya inuu wada gudbaynaa hadda waxa weeyaan contribution-kiini dhaqaale waan hayna bixinaysaan balkii talaya arrin inta isu geystaan bal sodan cagafo noocyo kala duwan loo jarmalku iska baxo meelaha yaala oo inuu ka codsanay in loo soo geejiyo oo waddanka inta hadhay wadooyinka ugu dhisno bataana baqashaa ku darsada aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa waan idinla faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan sanadkii labaad idinla ciido aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ilaahay noo rajaynayaa in sanadkiisa barwaaqo iyo nabad iyo baraare iyo muxuu ahaaye inagoo inta ka wanaagsan iyo ixtiraaf inuu ilaahay nagu gaadhsiiyo waxaan aad iyo aad si gaara u hambalaynayaa oo u soo dhawaynayaa walaalaheena Soomaaliyeed ee maanta xafladda nagala soo qayb galay oo inaan waxba kala lahayn waxayna isu nahay weligoo way jirayaan wax maydhi kara biyana ma maydhaan birina ma goyso waxayna isu nahay waa la ogyahay taa haddaynu laba waddan noqono laba waddan oo walaala tarmay baynu noqonnaa laba waddan oo walaala baynu
hargeysa lagama xigo haddii ilaa yidhaahdo iyadoo la ictiraafsiyo dowladda cid ka xigtaa ma jirto anigaysa ma kala xigno marka sidaan isku ogaano hadii qoraale aabbo haddii uu laba inan dhalo waxa dhacda dad mar inay intay qaan gaaraan inay laba heer kala yeeshaan laba ceeb may soo kordhin wax soo kordhay waxtar baa soo kordhay marka arrintii tusaale ahaan Djibouti barigii aynu xamaasadayna Djibouti baan muxuu ahaayey oran jiray talow maxay nooga hadhay barigii aynu dee shanta Soomaaliyeed u dagaalami jirnay marka waxaa weeyaan runtii markii dagaalka Hargeysa ka dhacay lagu baxsaday iyadii lagu baxsaday baa ogaanay in Ilaahay danta naga ogaa marka markii meel gubanayso haddii meel kale loo qabta ay jirto dawaa lagu baxsanaya haddana markii inagu aan soo qabanayna walaalahayni Soomaaliyeed ka hadlana ku baxsaday Djibouti horuntii ku baan marka waxaad walaalahayni Soomaaliyeed waxaad sharmooda soo khayr jira aynu walaalihii uun baynahay waxaan isu nahay oo waxaan maxaa go'ahaynin oo waxaan weligood isbedelahaynin aan isgarab gallo aan taageero annaguna diyaar baan u nahay wanaaggeena iyo samihiina iyo horumarkiina iyo nabadiina iyo dowladnimadeena aan ka shaqayno waxa abaal ah bay leedahay inta loo walaalaha oo istaageera oo hiil iyo hoob leh oo iska dhinac jeeda hadda ay noqon hawsha wada hadalka ayaa hawshaas way socotaa gundhigeeda iyo natiijadeeduna waa noocaas taa maanta aan leeyahay weeyaan runtii haddaan dadka qaaraysan ay turjumaan taa maanta aan ku hadlayo weeyaan wax laga wada hadlaya waxaan aad u salaamayaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel ay joogaanba fanaaniintu waa bilaa xuduud waxay maaweeliyaan oo ay u heestaan oo ay ka qosliyaan oo ay ka farxiyaan oo ay hoga tusaaleeyaan oo ay wax u sheegaan xalaale waxa dad waxay inta Soomaaliya ku hadasha marka ayagu waa bilaa xuduud aad iyo aad baan iyaga u salaamayaa oo aan u soo dhaweynayaa dhammaantiin waxaan leeyahay farxad wanaagsan ciid wanaagsan waa dadaalaynaa maxalaale waxaan akrinaynaa ma jirto sidaasaan naga lilaahaya inaan maxaa suu fiican jay isugu jirna dadka iyaga iyo dalka iyaga oo ka dhigno ayaan diyaarinahay wixii talaya tusaalaha iyo sigitaan haddii aad badbalooyin aragtaan ama maxaa mararka qaarkood qalab naga dhacana waxaa weeyaan diyaar baan u nahay dadka iyaga taladooda iyo toosintooda iyo tusaalahooda waa salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi السلام عليكم وآد بوغا سنة هاي مسير عافماتكم الدكتور حسين حوق كلي طلب تصالي وحياو بدن بوغارتا وينو شاقي دوائنا نبلغنا ودويكا إنا إنو وحكا قبرنا وفامل وليبا وحيو أوودو ودرها ديلا يكدبو وانا تاي وحكو دسريان بلغنا هاينا نقاط السوما وسيركا سداوي نقول بلغمي مدن وسير وكو بلقادنا inaan arinta wax ka qabanno aad iyo aad ma hadsantahay mudane Xuseen Xoog waa markii labaad inuu yimaado meeshan ma hadday nahay ama dheeraada